arrimahan magaalada gaarska jiraan أنا 6 سنة 4 سنة كهران كهلي ورمامل كان نفعنا مقالة وبيران ورمامل كان نفعنا دول كمسلمين تهلو قيبيو دول إلهي ونسيه دك عريري كبحيا ورسبتال كان مامل كوحني اسبتال كان داوة ملهي دادو كجرو أو ذي موليد وهاك ما شفديو يرون دلش يسموه أضيالا لي سكريسة شير جرايا على خبط سمك رئيسين محانيك نقول عين سند كي أوهر مولد واقشات كيوا ورمقالة والي صوتورتي مقالة وبيران وحنا قدايا ورمقالة اسبتال كيد وباباي ورمض دي جيدا حاحلا شانينا أنا يا مرحوم محمد يوسف حاجي الله يرحمه سمركم وكوها سنتها dadka beeshan way iska dagaali jireen waa walaal garuun bay isku dhifan jireen baangada jiri jirtay maxaa keenay in qori la isku dilo saldhiga Kenya ugu weyn ciidamada wuxuu ku yaala magaaladan soo ma saamo saldhigaas iyo magaalada dhexdeeda ayaa dadka lagu laynaya Mooriyaana laynaysa waan ka hadlay sanadkii waran ka hadlay kii labaadan ka hadlay kii saddexaadan ka hadlay kii afraadan ka hadlay kuwii shirka jaraa'idka lacag la siiyay shir jaraa'id igu qaadayeen ani ya hadda markay soo kulaadeen bay iimaanayeen maxaad ku dhacaw shirka jaraa'id ay u qaadayseen waa liisoo kiraysan jiray soo kiraysan magaaladan ha odayaal samadal baa soo qaadi odayaal cawdaqa lagu dari ku cooliyana lagu dari 100 kuna la siin anigana waxaan ka hadlaa war magaalada way oomantay biyasiya war umada hasku laaynina ونصيب درة حوال دتك مساكين تا أو ددالة أو غريو دا ددال كردستان أو ما أنتو إذا قتليون كودا قيدو كجرو إنا أديكو سياسي ما دام الدورة شدا صوت دواتي أضربت إنا أما حلبان أما سنتا أما غفانا أما ومن ريب أما MCA إنا تكون نقطو إنا أمدا مدح اسكو جلس قبيل قاضي وكسو أورتي وحالي أنا هذا الدفاع قبيل كذا لتا كورة كوهيني كل كلو كحجون بطريقي أيا كورة كوهيني وعاد سكود مكان لبادي قرأ إنا مدح اسكو جلس علماء عوض موانا كل ماري نك وزير كان درها على فرسني كله صورة وارد صورة في عن مهين وزير كان تيانجي رونتا عن وشيء وعندك كومو لبمو سدحمو أفرمو وانكو شيغني دبكا مغالada Gaarisa ninka wada waanku sheegnay waxbana kama qabanaysid waxaan la sheegay inuu lacag ku siinayo ويدي عبد الله يوسف حاج ويدي دكتور داهيه ويدي عبد الكريم عثمان ويدي هيري وحبنا ينو وحبيا لوها السود دوانين ماشي ودبك كسعود ولا قرصومه ما نوغرانينو مد لباد وزيرك وان شيغنا waxaan ahnay كافيو بشهر رمضان كمجرى مقالده كافي مجرى ونا وقلادي وقلا waxaan ahnay adiga mas'uuliyad iskale inaan nabadda wadankan gaaris mas'uuliyad ciidamada iskale بشهر رمضان كبشهر كريمك وحنا كافي مجرى wuxuu yiri toddoba bariisiya bishar ramadaanka oo gaarin ana kaafi qaadi mid labaad saaga magaalada ma aan maqlay nimankii biliis iyo kacbal kaafi jiray arrimahan oo xalliya waxa bilaabeen inay ummadda iyo tukaamaan lacag ruusan xalay lacag ruusanayn ana saaga soo galay wali shay afsoo xilna waan ku sheegi hadda inta ka baxan anu waxaan aadi biliista GSU way bilaabeen بليس وبلابن قريبة حضايان تكامي بالعكان ليه أنا كافيو نومن نقونا يا سيدي ماشي الصومالي ما تبلي لك شدي وجيت لقينا إني كان قرب يقول نقول ننك بليس وشيرني ويديو طالع يرى حافظ سكوي يرى سوفي جيا جاربني يعني سكرابة تقريتو سكرابة دولك يعرض إنك أسكاله ها
dhulka iyo carrada idinka askara anigana maanta magaalada waa joog hadda ninka biliis u yimid markaa soo socdaa lii sheegay waxaan dhagaa inta kama waa imaan kaafiyo waa la keenay haddana waxaa leeyahay ummaddii baa haddana leeyahay keena dukaamihii iyo dhallinyaradii iyo dadka magaalada socda lacag baa la weydiinaya ha hadda 11 oo la 12 oo la gaarin bay leeyihiin keena lacag na mimi nasema mimi nataka niwasikie kabisa sisi tumemwambia waziri Matiang'i we have told Matiang'i on his face that the problem of the land clashes in Garissa. He knows, and we have told government the last 4 years, he knows the father and the mother and the person behind it. We have told Matiang'i, tumemwambia yo waziri, na ni kazi ya waziri Matiang'i kulinda mali na maisha ya watu wa Kenya, hasa Waberi hapa mahali mimi nimechaguliwa. Anajua ni nani anachochea, na ile anachochea ni kwa sababu ya siasa. Na kama wewe hujafanya kazi na bonga point yako imeenda chini, unajua utaanguka, hatuwezi kukupatia nafasi ya kuleta vita kati ya watu wetu. Ani aanan barahday noqoto kursigeyga inaan ku gafo, inaan run sheego, runtaan sheegi. Cid kama cabsoonaay, qabiil kama cabsoonaay, ilaahay baan ka cabsoon, runta idin sheegani. Because qabiil bari wax muu tari. Oodaqa wax ii taraynin, Tolomoga wax ii taraynin, Ogaadeena wax ii taraynin, Daarooda wax ii taraynin, Soomaali wax ii taraynin. Haddii aan qayb ka qaato dadka rabaan inay ummadda qoryo iskugu dhiibaan oo dhiigooda ay cod ku helaan oo ay kursi ku helaan. odayaashii culumadan waxaan rabaa inay sidii maanta ay runtu sheegaan. wiilashii IBC wax sameeyeen saddexda qof oo ay sheegaan saddex inta way joogaan. ani waxaan u codeeyay ninkii dhahay run sheeg, anigu wareega run sheeg u dhahay. kan madaxweynaha عبد الغفار وكل مقارنة وجوه. عبد الغفار مجوه أم سمجوه؟ عبد الغفار سمجوه. عبد الغفار وحركات الرابع نيكي أساسا لدى دولة للسنة. كاسا ونوغود رمورت. أولى وزارة البيئة وحنو ديبي أمبانه. وزارة المالية وحنو ديبي لخاي. سد هذا وجوه. markay hadleen waan soo dhow waxaan waraadan baro adii ka tahay wiilka waxa sheegan wali waxa xalfadaha hadda doorashada soo dhawday xalfada in sidan oo kale laga dhigo oo dadka la wacageliyo nasiib darro waa weyn dhijita Kenya waxa dhacda waqti doorashada Kenya ana kilimo dada waxay rabaan inay madaxnimada ku helaan هوجانك يكون قبطان لازم إنه ضد أنتو لكن وأنا شايفني هذا فيري شال وزيرك صدق سنة هذا كورة يعني هاي بولا توكل بولاي كودي ولا كورة ولا بروفيري إني شيف أفلسيو صدق سنة هذا كورة كونسوسي يا دولة كينيا ويا بولا توكل إنه شيف جرو حافظان كودي شيف لغرو ورق واحد درادو متيانكي عليه حتى يجي وانا شيفافك عن قرنه صدق سالم هويست هذا قرنته مرقه تكته انا جي عبد السلام ايامنا نيكي قرنته جارس وينا والله وحان جوغا بولا باشان مدرسه من نار جوغا قرنته نقد سو سيده سيمك انا دغي مدق ويسو نقط سمين اركي سيمك ما دغي عبد السلام با يا ايه شيء ذا marka odayaasha waxaan rabnaa markii aan sheegno ani waan sheegi ninka dhibka wada waan sheegi haddana shir jireed ay qabanina waana fadhiyaan mawlidiyo mawlid way fadhiyaan shir jireed ali qabanin wiilasha waagin oo aadan bar qabiil u jooda aadan bar intuu jooda doorashada iyo siyaasiga ما هو وكله سياسي الوشيء دورشة إيه مدحضة ومصلحة مصلحة هذا أنتي كجرته
hadda Uhuru Kenyatta ninka la dhaho yaa Soomaalidu dhex ordaya lacag qaybinaya xildhibaanka asaga meesha laga soo doortay xildhibaankiisi gacan ku maayo waxa la Moses Kuria Ruto wala socda xildhibaankii Uhuru Kenyatta MCA Uhuru Kenyatta wuxuu la socdaa William Ruto Uhuru Kenyatta wuxuu rabaa inuu Garis iyo Wajeer iyo Mandera maamulo maalinse ugu maadamay weydiyaan warta aan ku dhageysanay adi MPgaad intuu jira Uhuru Kenyatta adi MPgaad intuu jira soo weydimo waxa doorashadan arrimo badan baa laga hadlay waa niman doona doorashadan si aan u qeylinay baarlamaanka u geeyay yaa dhaaro caruurteen kuwii farax xooti ku jireen 17 ku baahayna 14 ku marasi saddex ku waa hadda wali waa wadnaa doorashadan waa in la is weydiyo hooyooyinka meeshan fadhiyaan oo Garis iyo Wajeer iyo Mandera iyo Laama oo ama wiilkeeda ama ninkeeda ama walaalkeed ay ciidamada Kenya la baxeen ay dileen oo meedkiisa la haynin in la is weydiyo waa maxaa la dowladda iska dooraysi waa in la is weydiyo magaaladan maxay biilaanute soo lama soo dooran magaaladan eeto maxay isbitaalkeeda waa Garis Xusaan u yahay marka sheekadan ma aragtay inta afar duqeeyo inta meel wax xareeyo kursiga dadka lagu qaadi kuuraa askar hooyooyinka meesha fadhiyaan iyo dadka meesha fadhiya magaaladan waa waqti koronto si ahaan jirtay koronto injin bay ahaan jirtay korontadan magaalada maanta waxay ku xiran tahay Nairobi dhibki Garis haysan jiray wuxuu haysaa Wajeer iyo Mandera bisha Ramadaan hadda Wajeer iyo Mandera waxa ka dhici doona soo dhawra madaxdoodana hal nin intuu istaago dhahay Uhuru Kenyatta waan ku dhisaynaa korontada Wajeer iyo Mandera hagaaji maro waa nasiib darra marka doorashada dambe waa inaad dadka sigaysiin magaaladeena maxay magaalo diin u tahay magaalo diin u tahay culumadii iyo siyaasigii iyo ganacsatadii dad badan ayaa jiraan Sheekh Ahmed Nuur Wadafiri shaqo soo noo qabay muxsiniin fara badan ayaa jiraan inay rabaan inay dadka ay xoolahooda ku bixiyaan diinta soo hapa mimi naambia polisi mimi naambia PPO naenda kwaka leo wewe hujaleta hii curfew kuja kuibia watu wetu hapana wewe usitume askari yako kama ni polisi kama ni GSU wasikuje kutumia curfew